muxuu boqorkii jacaylka Bollywood isugu bedelay jilaa filmada dagaalka ah? Soo dhawow daawade, halkani waa Deeqsame iyo anigoo ah Maria Aadan. In ka badan 30 sano oo uu jiliinka ku soo jiray jilaagii caanka ahaa ee Bollywood Shah Rukh Khan, soo jiidashadii carruurnimada iyo dhoolla caddayntiisa dhabanada godan ayaa noqotay waxyaabaha ugu badan ee uu jilaagan ku aanbaxay, isagoo lagu jeclaa jiliinkiisa arrimaha jacaylka. Wax badan ayaa daawateen aflaantiisii ee murugadii jacaylkii iyo qisooyinka ku dheehnaayeen. Laakiin hadda waxay noqotay jug iyo bac iyo kacgub. Muuqaalka filimkiisii ugu dambeeyay ee Jawan, oo u muuqday mid bidaar leh, ayaa ahaa mid halis ah oo muujinayay Shah Rukh Khan iyadoo ay ku hareeraysan yihiin rakaab argagaxsan xilli uu afduub ahaan u haysto tareen metro ah. Durbadiiba waxa uu ku soo booday hees iyo koobka ciyaar, taas oo jahawareer ku riday dadkii uu soo afduubtay. Shah Rukh Khan, oo magac weyn ku leh dalka India, ayaa sidoo kale ka mid ah xiddigaha ugu caansan dalkaasi, isagoo malaayiin taageerayaal ah ku leh gudaha iyo dibaddaba. Dib ugu soo laabashadiisa aflaanta kadib muddo uu hakad ku jiray ayaa ah sheekadii ugu weynayd ee Bollywoodka sanadkan. Shah Rukh Khan ayaa horay u sameeyay filimo ay ka mid yihiin Don 2006 iyo Race 2017, laakiin kuwan ayaa dhif iyo naadir ku ah marka loo eego jiliinkiisii hore ee ah kuwiisii ugu dambeeyay ee Pathaan iyo Jawan. Priyanka Chopra waxa ay sheegtay in ay muujinayso weji cusub oo xirfadiisa ah. Shah Rukh Khan ayaa sanadkii 2023 ka bilaabay filimka basaaska ee Pathaan, kaas oo lagu arkay isagoo u tartamaya wakhtiga si uu dalka uga badbaadiyo weeraro argagixiso. Filimku waxa uu jebiyey rikoorka sanduuqa gudaha isagoo dhaafay $120 milyan 4 toddobaad gudihiis. Filimkiisii ugu dambeeyay ee Jawan ayaa rikoorkaas dhaafay bishii hore muddo 18 maalmood ah. Qofka aan hadda ku aragno shaashadda aad ayuu uga duwan yahay sidii aan ku arki jirnay aflaantii hore, ayay tiri Priyanka Chopra. Prabhu Desai ayaa sheegay in labada filim ay dib u soo nooleeyeen xirfadiisa iyo xidignimadiisa. 4 sano oo uu Shah Rukh Khan ka maqnaa filimada ayaa timid kadib dib u dhacyo isdaba joog ah oo ku yimid noloshiisa gaarka ah iyo xirfadiisa. Waa maxay sababta Shah Rukh Khan filimkiisa soo laabashada uu yahay mid weyn? Labada filim ayaa leh qaabab kala duwan, haddana fariintoodu waa isku mid: waa halyey wadani ah oo ay ku hareeraysan yihiin xulafo diimeed iyo gobollo kala duwan, kuwaas oo ka wada shaqeeya badbaadinta waddan dhibaato ka jirto. Jawan, Shah Rukh Khan waxa uu ku jilayaa wiil uu dhalay sarkaal ciidan, isagoo u dagaalamaya inuu magaca aabbihii ka nadiifiyo eedeymo been abuur ah. Tan iyo markii ay xukunka la wareegtay dowladda Modi, dadka u dhaqdhaqaaqa bini'aadanimada ayaa sheegaya in ay kordheen dembiyada nacaybka ee ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay. BJP waa ay diiday eedeymaha, laakiin hogaamiyayaasheeda dhif iyo naadir ayay u ambaareeyaan dhacdooyinkan oo kale. Blockbusterska sanadkan waxay fahmeen oo nashqadeen soo laabashada Shah Rukh Khan ma ahan oo kaliya atoore, balse waa halyey muslim ah oo uu maamulo xisbiga Hinduuga, ayuu yiri Mr. Desai. Muuqaal laga soo xigtay Jawan oo ay dadka dhaliila iyo daawadayaasha si isku mid ah u tixraaceen ayaa ah hal ku dhiga Shah Rukh Khan ee muhiimadda codbixinta iyo la xisaabtanka siyaasadeed. Dhowr xisbi oo siyaasadeed oo ay ku jiraan BJP ee talada haya iyo Koongareeska mucaaradka ayaa ku andacoonaya in loo tixraacayo kan kale. Priyanka Chopra waxay leedahay waa calaamad wanaagsan marka aad samayso wax saameyn ku leh guud ahaan bulshada. Guusha Shah Rukh Khan ee filimadan ayaa ku soo celisay meel bannaan oo uusan hadda ka ahayn fikrad xun, ayuu yiri Mr. Desai. Laakiin Shreyana Bhattacharya ayaa sheegtay in Khan weligiis aad loo jeclaa in uu soo noqdo, dibna u soo nooleeyo jiliinkiisa. Taageerayaasha oo aad u faraxsan ayaa isu abaabulay si ay u arkaan jilaaga ay jecel yihiin kadib hakadkiisa, Bhattacharya ayaa tiri. Waxay rabeen in ay muujiyaan midnimo oo ay laftigooda ku raaxaystaan filimadiisa. Shah Rukh Khan weli wax badan ayuu samayn karaa jila ahaan, ayuu yiri Mr. Desai. Waa uu sii doqoobayaa, waxaan rajaynayaa in uu aad ugu kalsoonaado xiddignimadiisa oo aan dhaafsiisnayn inuu doorto doorar kala duwan.